waxaa maanta la soo gabagabeeyay shirkii soconayay labada maalmood ay iska kaashanayeen hay'adaha Samcod, Accord iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee South Africa kaasi oo lagu qabtay African Pride Hotel ee magaalada Cape Town dalka Koonfur Afrika. shirkani oo ka soo qayb galeen in ka badan 200 oo qof oo isku jira Soomaali iyo South African halkaasi oo khudbado ka jeediyeen barofesor ka kariimid dalka baxsan South Africa iyagoo xoogga saaray isdhexgalka bulshooyinka Soomaaliya iyo South Africa iyo sidii loo kaabi lahaa dawladda cusub ee Soomaaliya. haddaba markuu shirka soo gabagabeeyay TV-ga caalamiga Universal la hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb gashay seminaarkan ee soo qaban qaabiyeen hay'adaha Samcod, Accord iyo wasaaradda arrimaha dibadda South Africa. xiriirka labada dal sidii uu noqon lahaa iyo qaabkii loo sheegi karay waxaan ku heshiinay in la abuuro guddi South Africa iyo Soomaaliya ka socda oo investment-ka Soomaaliya ka wada hadla karkaas kadibna mashruucyo gaar ah in ay ku heshiiyeen in mashruucyo gaar ah maalgeliyaan si wada jir ah saasay ujeedada ugu weyn ee shirka ahayd wixii loogu yimid markii hore oo laga faa'iideeyay intaasay ahayd xiriirkii Soomaaliya iyo South Africa aad u furmay qaybsanaa sida Soomaaliya loo maalgelin lahaa dawladda South Africa sida Soomaaliya dawladda cusub ula jaan qaadi lahayd sida investment ugu sameyn lahayd marka waxa la isku soo qaaday mashruucyo oo ilaa 5 mashruuc oo priority leh sida biyagelinta wadanka sida dadka xirfadooda sida loo dhiso dhinaca badda malaay gaaditaanka iyo beeraha iyo kuwa kale. My name is Imtiaz Abdullah. I'm the counterparty to the South African Somali Business Association, which is an association obviously to develop businesses and economic development between the two countries. I think this is a very important conference because what it does is after the very positive change that has happened in Somalia now, South Africa has always been a supporter to normalize and to create a very enabling environment in Somalia so both countries can actually contribute towards the development of each of its citizens. si kastaba ha ahaatee shirkani oo kii ugu horeeyay noociisa kale ayaa qayb ka ahaa qabanqaabadiisa hay'ad Soomaaliyeed ayaa wax badan ka bedeli kara wacyiga hogaamiyaasha jaaliyadaha iyo madaxda dowladda Koonfur Afrika. Maxamed Deeq Muuse Nuur, Deeq Darajo, Universal TV, South Africa.